السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu qaadanaynaa cashirkii shanaad maadada xisaabta fasalka form 4 ama 12aad chapterka koowaad. Casharkan wuxuu ka bilaabanay example 4 tusaalaha afraad. Verify that wuxuu ku saabsan yahay verify that caddee the following equation isla egtan soo socda is unidentified inay isku dhigmato ama isla eg tahay caddee. Example-ka afraad chapterka koowaad maadada xisaabta fasalka 12aad. Question-ka waatana waa sin pi loo qaybiyo 6 lagu daray theta lagu sii daray cos pi loo qaybiyo 3 lagu daray theta inay la mid tahay cos theta. Markii aan ka shaqeyno sin pi loo qaybiyay 6 plus 3 plus theta plus cos pi loo qaybiyay 3 plus theta ma la eg tahay markaas qaybtaas la shaqeeyo cos theta ma la eg tahay. Qaabkaas ayaan rabaa inaan oo shaqeyno. Marka hore waxaan sameynaynaa sin pi loo qaybiyay 6 plus theta waxay u qoran tahay mid ka mid ah qaacidooyinkii sin oo ah sin a plus b sin a plus b ay u qoran tahay oo a waxaan u taagan pi loo qaybiyo 6 b na waxay u taagan tahay theta. Sidoo kale cos pi loo qaybiyo 6 plus theta waxay u qoran tahay cos a plus b cos a plus b saa loo furfurayna waa naqanaa pi loo qaybiyo 3 waa a theta waxay u taagan tahay b. Marka waa laba qaacido kala duwan oo qaacido waxaa iska leh sin qaacido kale waxaa iska leh cos. Midka hore sin ayaa iska leh midka dambena cos ayaa iska leh. Qaabkaas ayaan u furfuraynaa. Sin pi loo qaybiyo 6 plus theta waxay u qoran tahay sin a plus b sin a plus b na waxaa loo furfuri jiray sin a plus b waxaa loo furfuri jiray sin a cos b plus cos a sin b. qaabkaas ayaa loo furfuri jiray. waxaan u bedelanay pi loo qaybiyay 6 sidoo kale cos b da bedel waxaan u bedelanay theta plus cos soo qaado pi loo qaybiyay 6 u bedel sin soo qaado b na bedel theta u bedel plus soo qaado kadib cos sidoo kale cos pi loo qaybiyay 6 plus pi loo qaybiyay 3 plus theta waxay u qoran tahay cos a plus b cos a waxaa loo furfuri plus b waxaa loo furfuri jiray cos a cos b plus markay tahay waxaan bedeli jirnay minus sin a sin b. meel kastoo a waxaa u bedeltaa pi loo qaybiyay 3 meel kastoo b na waxaa u bedeltaa theta. a waan bedelanay waxaan u bedelanay pi loo qaybiyay 3 cos soo qaado b bedel theta u bedel minus soo qaado sin soo qaado a bedel waa pi loo qaybiyay 3 sin soo qaado b da bedel theta. qaabkaas ayaan ooga shaqeynay. kadib waxaan sameynaynaa sin pi loo qaybiyay 6 iyo cos pi loo qaybiyay 6 cos pi loo qaybiyay 3 iyo sin pi loo qaybiyay 3 intaasi waa la qiimeyn karaa waanu qiimeynaynaa. sin pi loo qaybiyay 6 marka la qiimeeyo waxaa soo bixi half ama hal loo qaybiyay 2 cos theta soo qaado plus soo qaado cos pi loo qaybiyay 6 markii la qiimeeyo waxaa soo bixi radical 3 loo qaybiyay 2 sin theta soo qaado plus cos pi loo qaybiyay 3 markii la qiimeeyo waxaa soo bixi half ama 1 loo qaybiyay 2 cos theta soo qaado maadaama ay qiimsameynin
sin by loo qeybiyo 3 marka la qiimeeyo waxaa soo bixi radical 3 loo qeybiyey 2 sin theta soo qaado waxaan isku bixinaynaa wixii isku mid ah waxaa isku mid ah radical 3 loo qeybiyey 2 sin theta qaybtana ay ku jirtaa waa minus radical 3 loo qeybiyey 2 sin theta labada qayb ayaa isku mid ah way isla bixi laba qayb ayaan isla bixinay waa plus radical 3 loo qeybiyey 2 sin theta iyo minus radical 3 loo qeybiyey 2 sin theta kadib waxaa noo soo hadhay hal loo qeybiyey 2 cos theta iyo hal loo qeybiyey 2 cos theta ayaa noo soo hadhay hal loo qeybiyey 2 cos theta waatana plus soo qaado hal loo qeybiyey 2 cos theta soo qaado kadib labadan waxaa ka dhexeeya LCM maadaama hooseyadooda isku mid yihiin hooseyada hal xabo kasoo qaado kadib laba qeybi waa hal ku dhufo waa hal waxaa ku dhufataa cos theta ayaa soo bixi plus laba qeybi waa hal ku dhufo cos theta waa cos theta kadib cos theta plus cos theta loo qeybi 2 waxaynu ka sameyneynaa cos thetan waxaa u qarsoon hal cos theta kalena waxaa u qarsoon hal laba cos theta oo horgalayaasha ayaanu isku daraynaa waxay noqoni 2 cos theta loo qeybiyey 2 cos theta loo qeybiyey 2 ayaa soo hadhay kadib laba 2 isla bixi jawaabta u dambeysa waxaa soo bixi cos theta oo keli ah su-aasha noo dar waxay ahayd sin by loo qeybiyey 6 plus theta plus cos by loo qeybiyey 3 plus theta qaybtaas marka laga shaqeeyo ma la mid tahay cos theta haa way la mid tahay waan ka shaqeynay waxaa soo baxay cos theta iyo cos theta waa isku mid